dad badan ayaa goobjoog u noqday jabtarka cusub ee taariikhda 1500 sane Hagia Sophia. dhismahan weyn kiniisad ayuu ahaa, masjid ayaa laga dhigay, ka gadaalna madxaf. mar kale hadda masjid muslimiinta ay ku cibaadaystaan ayuu noqday. jiilkii hore ee Turkiga waxay u tahay waqti qarannimo iyo sharaf. 86 sano oo aan sugaynay ayaa maanta soo afjarantay. muddo dheer ayaynu sugaynay in Hagia Sophia la furo. way ku mahadsan yihiin madaxweynaheenna iyo go'aanka maxkamadda. maanta salaada jimcaha ayaynu ku tukanaynaa Hagia Sophia. maanta taariikh ayaynu goobjoog u nahay. waa maalintii Hagia Sophia ay sidoodii hore ku soo laabatay. guul ayay sidoo kale u tahay madaxweynaha Turkiga. waa maalin dhinac la iska dhigayo walaacyada kale sida dhaqaalaha liita, caqabadaha siyaasadda iyo saamaynta fayraska corona. taageerayaashiisu waxay ku tilmaameen inuu la mid yahay saldanadii qabsatay caasimadda boqortooyada Roomaanka 1453 kadibna kiniisadda Byzantine Islaamka siisay. kuwa ka horjeeda madaxweynaha waxay u arkaan dhammaan isbeddello walwal leh. arrintani waa calaamad looga laabanaya dhinaca galbeedka iyo cilmaaniyadda oo abuuraysa in xaqiiqdii Turkiga uu islaamka u difaacayo si ka weyn xuquuqdiisa qarannimo. as much as it defends its own national rights. قالت النصارى ليست اليهود على 500 ruux ayaa gudaha ku tukaday. inta badan gudaha way isaga egyihiin islaamka iyo kristaanka. boobku wuxuu ku tilmaamay inay tahay waqti xanuun badan, balse Erdogan wuxuu sheegay inaysan waxba ka walaacin kristaanka. Hagia Sophia way u furan tahay cid walba. sanamyada gudaha Byzantine waa la daboolayaa inta salaada la dukanayo oo kaliya. Fetih sevdasını Sultan Mehmed'in gönlüne nakış nakış işleyen khudbad ay ku jiraan qodobo badan oo ku saabsan sharaftii Cusmaaniyiinta dalka ayaa wadaadka ugu sarreeya Turkiga uu ku soo qaatay in xilligii niyadjabka qaran uu soo gabagaboobay. waa maalin uu doonayay madaxweyne Erdogan. waa la dabaaldegay, balse tallaabada maanta wax badan kama qabanayso midnimada waddan ay kala qaybsanaan baahsan ka jirto. sidaan wax badan uga ogaano dareenka dadka muslimiinta ah maanta masaajidkaasi ku tukaday salaada jimcaha waxaa goor sii horeysay aanu la xidhiidhnay gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga Maxamed Maxamuud Maxamed oo nooga warramay isagoo ku sugan masaajidka banaankiisa bal xaalad sidahayd. والله إني ومانتا شعورتها ماشان كم وقتها إسطنبول وشعور آدي معناها أقيمة بدن runtii qof kastoo islaamana maarta uu dareemayo maanta waxay uga dhigan tahay wadankan ama muslimiinta oo dhan inna fatahna laka fathan mubiinan ayad ilaahay uu yiro kale maxaa yeelay waxa isku soo baxay dhowr milyan oo qof ayaa isku soo baxay masaajidka hareerihiisa waa buuxa iska wada masaajidka meel u jirta 1 mitir ayay dadku ku egyihiin waa la geli waayay dadka aawadiisa marka insha Allah taala kulli taariikh haddaan wax kaaga dhigo waxay uga dhigan tahay runtii maalin ciid weyn oo kala ah oo runtii taariikh kule islaamka iyo wadamada caalamka caalamul islaami waad ogtahay masaajidkan taariikhdiisa Hagia Sophia la dhahaa masaajidka waxaa dhisay imperator Justin Janus 537 taariikhda markay ahayd ayaa la dhisay miilaadiya waa dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor 34 sano marka runtii waxay noqotay tusaale weyn ay maanta uga dhigan tahay wadanka Turkiga iyo muslimiinta malaayiinta qof ku dhow 5 milyan oo qof oo meesha ku soo baxda maanta kulligood waxay ku halaaqayaan waxaan ku faraxsanahay Hagia Sophia inay noqoto masaajid Hagia Sophia inay ku tukano Hagia Sophia inay noqoto meel nabadeed oo adduunkana wax dhibaato aysan u qabin marka Hagia Sophia waxay xaq marka u leedahay maanta in lagu tukado